wafdigani uu hogaaminayay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Professor Cumar Dhagey ayaa maanta ka soo degay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana wafdigu uu xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble. Professor Cumar Dhagey ayaa ujeedka socdaalkiisa ku sheegay in ay fiirinayaan habka ay doorashada xildhibaanada aqalka sare ay maanta magaalada Jowhar uga dhacayso xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle si aan uga qayb qaadano goobjoogna uga noqono doorashada taariikhiga ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka u matali lahaa dowlad goboleedka Hirshabelle doorashadiisii oo ka dhacaysa xarunta baarlamaanka ee dowlad goboleedka maanta sidaad ogtihiin dowlad goboleedka Hirshabelle oo ah dowlad aad u daayar oo mar dhow dhalatay inay isla markii intiis abaabusho ay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble ayaa sheegay in doorashada aqalka sare ay maanta Jowhar ka dhacayso halka doorashada xildhibaanada aqalka hoosena ay dhacayso maalinimada Jimcada ah ee fooda nagu soo hayso. annaguna waxaan go'aansanay in aan bal arinta ayada dejino maanta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan nagala qayb qaadan doontaan doorashadii aqalka sare sidaan jecelnahayna inaan 3 cisho oo soo socota wixii ka dambeeyana inay bilaabato doorashadii aqalka hoose runtii annaguna taariikh ay noo tahay Soomaaliyana taariikh ay u tahay in wax badan oo la jiitamiyo maana haddii howl loo istaaga in under pressure in lagu shaqeyn karo oo muddo gaaban wax badan oo waqti dheer iska soo jiitamay in lagu qaban karo ayada nafteeda waxaan rajaynaynaa in ay ka soo baxaan labada aqalba dad ay ku qanacsan yihiin dadka deegaanka oo Hirshabelle ku matali kara aqalka sare iyo aqalka hoose. Imaanshiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli maanta magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka dhici doonto doorashada xildhibaanada aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle u matalaya dowladda dhexe ee Soomaaliya. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.